dood adag oo baraha bulshada ka dhex socotay saacadihii ugu dambeeyey ayaa lagu gurfeenayay arrimo dhowr oo ku saabsan arrintan iminka soo shacbaxday ee baraha bulshada qabsatay ee ku saabsan inay jiraan dhalinyaro social mediaha caanka ah islamarkaana soomaalidu si fiican ay taageero ugu tahay kuwaasi oo qaarkood lala xidhiidhinayo in ay cilaaqaad dowlo leeyihiin kooxda shayaadiinta ee isha illuminari loo yaqaano. haddaba saacadii ugu dambeeyey samiixa qaliil ayaa iyadu waxa ay barteeda tictoga soo dhigtay video ay ugu hanjabayso wiilka lagu magacaabo degow kaasi oo arrintan la yimid soona bandhigay, waxaana ay sheegtay in sababta ugu weyn ee u beegsanaya iyadu inay tahay barnaamijkii tabarucaada iyo taakuleynta ummadda muslimiinta soomaaliyeed ee tabaaleysan ee ramadaanta awgeed ay doorbiday amaba ay u doorbiday iyadoo adeegsanaysa ama ka duuleysa magaceeda iyo caanimadeeda in ay gacan qabato ama wuxuu ilaahay ummadda uga soo qaaday ay iyadu gaarsiiso. waana arrimaha ugu weyn ee samiixa qaliil ay ku doodeyso. sidoo kale waxay ugu hanjabtay inay jiraan dhalinyaro iyada ehelkeeda iyo qaraabadeeda ka mid ah, kuwaasi ayaa waxay tiri hadda ka dambe iyaga ayaa si toos oo la macaamili doontaa. anigu ma doonaya inaan u jawaabo bay leedahay shaqsigan, waxaanu soo ogaaday bay leedahay oo aan xaqiijiye ugu dambeyn halka laiga weerarayo in ay tahay maxaad adigoo dumar ah, maxaad adigoo markaasi social mediaha lagaga yaqaano u bilowday geedi socodkan ummadda soomaaliyeed dhaqaalaha loogu ururinayo. arrintaasi oo samiixa iyo dirisle dhowaanahanba ay ka wadeen soomaaliya, sidoo kale muqdisho ay booqdeen, waxaay sidoo kale safarkooda kusii amaba ugu sii gudbeen aan iraahde dalkaasi somalilan, hargeysa ayay joogeen. arrintan ayay leedahay waa sababta aan dhaleeceyntaasi ku muteystay iyo caanimadeeda. ha yeeshee haddana dadka baraha bulshada adeegsado dooda ayaa jira laisla dhex maraya saacadihii ugu dambeeyey. dhegow oo arrinta miiska soo saaray ayaa wax laga weydiiyey sababaha ugu tilmaamay dad muslimiin ah oo caqiidadooda ay aada markaasi u wanaagsan tahay in ay yihiin dad gaalo ah amaba shayaadiinta caabudaan. waxa uu ka weecday su-aasha ah in uu arrinkaasi si toosa ula xidhiidhiyay, balse waxa uu isagu xaqiijinaya oo ku adkeysanaya tuhunka ah inay jiraan suurtagalnimo ah in samiixa maslax mideeye iyo cumariin iyo kooxo kale in ay yihiin kuwo markaasi xidhiir la leh kooxda shayaadiinta, maadaama astaamihii ay muujiyeen ay qeyb ka yihiin waxyaabaha calaamadaha u ah dadkaasi aan yiraahday raalli ahaada iyagu kooxda shayaadiinta isugu magacowday illuminarida. samiixa oo aada markaasi arrinkan uga carootay ayaa u muuqatay in sidoo kale ay leedahay shaqsigaasi magaciisa ma garanayo, balse waa mid ka mid a tallaabooyinka uu ku doonayo in uu kusoo caanbaxo. haddaba iyadoo ay taasi jirtay, arrintan ayaa gelgeshay baraha bulshada saacadihii ugu dambeeyey, iyadoo culimaudiinka iminka laga dalbanayo in ay soo farageliyaan wixii alle baray amaba kitaabka alle iyagoo adeegsanaya soo daliishanaya in arrinkan bal ay iyagu ummadda u bidhaamiyaan oo ay u faahfaahiyaan iyo jihada iminka ay kusii socoto soomaalida baraha bulshada aadka u adeegsato waayadan dambe. haddaba waxaad moodaa in doodan ay tahay mid cirka isku shareereyso, waana wixii ugu weynaa ugu saameynta weynaa ee baraha bulshada lagu arko, waana wixii markaasi ugu la yaabka lahaa. dad badan oo caan ah ayaa arrinkan kasoo jawaabay, qaarkoodna dhaleecin dusha uga tuuray inankan soomaaliyeed soo qaaday doodan islamarkaana soo bandhigay cadeymo uu isagu leeyahay. waxa uu cuskaday arrintaasi uu ku xukuminayo in qaar ka mid a dadka social media adeegsanaya samiixa ay ku jirto inay yihiin dad illuminati la shaqaysto. haddaba waxa la weydiiyey bal arrinkan sababta uu isagu ku cadeynayo. waxauu sheegay cadeymahaasi ayaa ku filan baa laleeyahay. dadka qaar uma arkaan in cadeymahan ay yihiin kuwo sax ah oo dadkaasi lagu xukumin karo, tallaaban lagu qaadi karo. hase yeeshee haddana dadka qaarkood waxaad moodaa in shaki iyo tuhun ay ka muujinayaan calaamadahaasi ay muujiyeen dhalinyaradan. run ahaantii waxaad moodaa in doodan ay tahay mid la yaab leh, iyada oo markaasi iminka culimaudiinka laga doonaya in ay faahfaahiyaan. dadka baraha bulshada adeegsado ayaa qaarkood qofba sida uu arko arrintan ka jawaabaya, inkastoo dadku badankood ay isku raaceen in dhalinyaradan social mediaha adeegsato sinaba aysan oga mid noqon karin kooxahaasi, maadaama ay yihiin dad markaasi muslimiin ah, caqiidadooduna toosan tahay, dariiqa toosan ee muslimnimada islaamnimada ay ku toosan yihiin ama ay ku taagan yihiin. bil barakeysan ee lagu jira samiixa dhowaan waxay cadeysanay soomnaant islamarkaana
ay iyadu qof muslim tahay. hase yeeshee haddana waxaa leeyahay kooxahan ilamunaatiga ayaad moodaa in dadka ay qaarkood fahansaneen waxa ay yihiin, halka ay ka howlgalaan, cidda ay adeegsadaan, qaababka ay u howlgalaan. dadka qaar waxay leeyihiin kooxdan shuruudaha ugu weyne qofka kusoo biiraya ku xiran waxaa ka mid ah in qof eelkiisa ama qof ku dhow uu qudha ka jaro. sidoo kale waxyaabaha kale la sheegaya waxaa ka mid ah lacag in dadkaasi ay leeyihiin iyo waxyaabo lamid ah. maadaama shirki ay tahay arrinkan, alla subxaana watacaala aysan jirin cid isaga ka awood amaba ka awood badan oo koonkani saaran. hase yeeshee haddana qof weliba oo caqiidadiisa aada moodo in uu ku luminayo arrinkan, waxaa looga digayaa in uu ka fogaado malaha iyo fasiraada qaldan ee waxyaabahan iyo waxyaabaha markaasi dadkani ay ku marhabaabinayaan ummadeena muslimiinta, diinteenna ay ugu gafayaan, maadaama ay tahay arrin aada u weyn oo khalad ah oo la oran karo aleelahay waa lagu gaaloobi karaa haddii lasii wadwado oo lasii fasfasiro, qofba sida u arko uu ka hadlo, sidoo kale lasii bunbuuniyo. dadku waxaad moodaa inay ka daadegaysaba arrinkan, ay ka daadegaysa arrinta ah in dadkani ay jirin cid markaasi ka awood badan oo ka lacag badan. qofkii ku biiri isu dhiibana uu noqonayo qof maalqabeena oo adduunka ugu taajirsan, magac maamuus iyo mansab ku yeelanayo. haddaba waxyaabahan oo idil waa waxyaabo khaldan, xadgudubna ku ah diinteenna suuban wanaagsan ee islaamnimada. walaalayaalo waxaan doonaynaa in mawduucaasi lasoo afjaro. ummadda khayrka jecelna waxaan u rajeynaynaa in ay ka dheeraadaan qaladaadkan iyo gafafkan ay u geysanayaan walaalahood. qofka muslimka ahi waxaa waajib ku ah in walaalkiis uu badbaadiyo oo uusan wax dhiba u geysan. bil ramadaan aynu ku jirnaa, culimaudiinka sida qudhowdu iyagu waxaa laga dalbanayaa bal arrinkan inay kasoo hadlaan. waxaa leeyahay social mediahii waayadan dambe qariska tuur ayuu noqday oo waxyaabo khalkhaldan oo aada u foolxun ayaa ka socda. culimmada waaweyn, sheekh mustafe, sheekh umul, sheekh dirir iyo qaar ka mid ah kuwa iyagu ummadda hormuudka iyo haldoorada u ah, waxaa laga codsanayaa in arrinkan bal tafaasiil iyo faahfaahin ay naga siiyaan. sidoo kalena ummadda baraarujin mawduucan iyo mawduucyada kale ee foosha xun ay ka siiyaan. bil ramadaan aynu ku jirnaa, aakhir saban ayaynu la joogaabaad moodaa, oo dunida wax haare ma jiro. waxyaabihii ugu waaweynaa ee soo bixi lahaa waa ay soo baxeen. arrintan ayaa u dambeysay. arrintanna waa mid aada u foolxun oo la yaab leh. waxaana habboon in gebi ahaanba lasoo afjaro oo halkaasi lagu xidho, maadaama ay tahay wax aanu mudnayn in la bunbuuniyo oo laga hadlo oo markaasi dadku ay isla dhex maraan. saaxiib yaal, haddii aad nala socoteen ama aad nagu soo biirtay goor dhoweed, subscribe inoo saar janalkan. waxyaabo badan ayaad ka faa'iidi doontaa. weli dib u habeen iyo dib u casriyaan ayaynu ku sameynaynaa janalkan. muuqaalo aada u waaweyn oo aada u wanaagsan oo arrimaha soomaalida quseeya ayaynu soo gudbin doonaa. haddii ay tahay markaa kugu koowaad oo soo booqonaysa, like garee muuqaalkan iyo muuqaalada kale, sidoo kale subscribe garee janalkan. mahadsanidin.